عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي السلام عليكم ودين تعالى إذا كنتم وأنا قرص عبد الله سيعو جنا كذا ونسينا وهي سيعو برودكشن سودو هذا أصحابته سودو هذا فضلا هدية تابوق شد الكوريس وجنا كأصوب وقته وحن سحش من لك أقعد سماع سبسكرايب لايك شير كومنت أنت من رعنا كسيسو هدية هذا لو جبتنا هدية هذا محكور هذا وما هاد سنتين لمانتين إذاك أول جيرو أو دن أنت كذب مقال كان عاوه muxuu ku saabsan yahay muuqaalkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay oo ku saabsan yahay sida aad ku soo aragteen maxaan ku yiraahdaa ciwaanka runtii xalay muuqaal ayaan soo geliyay dadka qaar ayaa falcelin waxay ka soo gudbiyeen dhan commentiga ah falcelin aanan runtii aanan wanaagsaneyn laakiin anyway wax walba ahaataba intii isoo caysay iyo intii isoo amaantaba لمانتين وما سنتين صوتوا أن كان يسوع حتى إيفن مقالكو جهد قليل صح؟ ما دام مقالكو جهد قليل وقف يحرن وياها وكما سنية هاي رنتي وحول بابا مر بعد السوشيال ميديا كجرتنا عاي أمان لبض والكم معنا مرك محلي سو عاي محلي سو أماني معنا ما جرت ولو سو عاينا ولو سو أمانة haddii laba qof ay ku cayso saddex ku amaanayso saddex haddii ku amaanto hal qof ku caayo hal qof hadduu ku caayo shan qof ku amaanayso marka taas aniga wax dhibaato ay ii keenayso ma jirto meena runtii aad iyo aad waxaan ku raadin maasantiin ma rabo inaan dib ugu noqdo muuqaalkii xalan ka soo hadlay jasikali waxa rabaa in muuqaalkii Kamaal Cabdul uu soo galiyay aniguna muuqaalka soo qaadanaynin in runtii aan ku amaano waayo maadaama arrintan ay soo jiitamaysay asigiina oo soo afjaro oo soo gabagabeeyay xaqiiqda jirtana uu ka soo hadlay runtii ani ma dhahayo been ku dhaartay iyo maxaan ku yiraahdaa wax la mid ma dhahayo meena anaga dad islaamaan nahay qofkii dhaarto waliba كسب بس يدرونه كتب كدارته قفك أمين ويا محن كل هذا كدار مركا كمال صاحبك وحن كل هاي خروق صعب رنتي نرشيد المقال هذيك وقص حسن حلا كسو هاللي حلا نوحيلتها إن أنا كوجو حد قدبن نهرنا وشاقي مقال كحلا أنسوق ليه جوان مقاضن ما دهين هبلا صحن ما دهين هبلا قلدن كليه waxaan sheegay hadalka walaashan inuu yahay mid isburinaya macna iska daba imaanaya macna intaas kadib maraba in muuqaalkii oo macnaha muuqaalkii soo dheeraado kaliya waxa rabaa inaan dhaho saaxiibkay Kamaal waxa uu soo hadashay si ragnimo ay ku dheehan tahay arintii waa soo afjartay dad badan aad kugu sii dambaabi lahay macna dad badan aad kugu sii dambaabi lahay oo saasa tahay iyo saan waay wixii dhan waa soo afjartay على كل حال wixii dhan waa soo afjartay runtii taasna maxaan ku radaa waan kaaga mahad celinayaa sidee banaanman waxa fiican arin markaa ka hadlaysid in arinta si qoto dheer la dubaarto aniga inkastoo iska mashquulsanaa haddana kama soo hadlin arintan social media wareegaysa xalay aan ka soo hadlay intii arinta socoto dhan koraan kala socday koraanka maxaan ku ka daawanayay kaliya xalan ka soo hadlay waxaan soo qaatay laba muuqaal oo midna Kamaal oo dhahayo muuqaalka aniga ayaan macnaha muuqaalka wiilka abihiisa soo duubay iyo waxaan soo qaatay muuqaal hani ee dhahayso muuqaalka aniga ka duubay just labadaas muuqaal ayaan ka soo hadlo aan is dhahay waa laba muuqaal oo isburinaya macnaha إنكم حكتبين إدنا ما أفلقادينين runtii in qof bini aadan la aflagaadeeyna wax macnaha fudud ma aha wax fudud ma aha it's not easy just kaliya waxaan dhahay Imraan laakaha media Imraan Qaraami waa nin runta ku aqaano oo xaqiiqda soo gudbiyo macnaha mar walba xaqiiqda oo leeyahay xaqiiqdana soo gudbiyo xaqiiqda ka hadla Imraan inta aan ku xiranahay ma dhicin wali arin la isku qabsaday oo been uu ka soo sheegay ma jirto macnaha xaqiiqda ayuu ka hadlaa
intaasaa maxaan ku yidhahdaa dhahay iyo sidoo kale waxaan kaloo dhahay okay inaad dib ugu noqdo ma rabo kolley muuqaalkii hore aan kasoo hadlo wuu ku jiraa qofkii caqli saliimka ilaahi subxaana watacaala uu siiyey adeegsada muuqaalka hadduu arko dabcan u malayn maayo in maxaan ku yidhahdaa uu ku arkaayo anigu qofku aflagaadeynayo amaana qofku xadgudbaa micna runtii xadgudub ani laygu xadgudb ma jecli sida aniga aan u necbahay in laygu xadgudbo ayaan u necbahay in qof kale aan ku xadgudbo marka xadgudubka ma aha wax qurux badan waa wax laga fiican yahay marka saaxiibkay kamaal walaalkay kamaal waxaan ku leeyahay aad iyo aad aa umahadsan tahay maadaama arrin isku cakirneyd arrin isku qasneyd aad kala bixisay xaqiiqda aad ka soo hadashay runtii dad badan oo youtuberis ah dabcan in indhihii iyo dhegihii ay u furmeen ayaan rajeynaya mena dad even waxaa jiray oo dhahayay gabadha maba dhali kartaba caruurta ma dhali karto bataatan ma dhali karto war inta kuma qorna ma dhali karti caruur tusaale ahaan hadda waxaa jiro qof da'diisu qof aad taqaano oo xaafadda kula degan oo waxaa la helayaa da'diisu ay 40 kor u dhaaftay oo laga yaabo in 2 caruur oo haysto 40 qof da'diisa 40 ay tahay 2 caruur oo haysto marka la isku fiiriyo isku dhigmaan ma la dhihi karaa marka ninkaas 2 caruur kaliya ma dhalin ma dhihi karo marka muuqaalka qofka iyo caruur iyo macnaha inta caruur oo haysto ma isku xirnaa karto macnaha wax isku xirna ma aha waa arkayay youtuber dhahayay bataatanba dhigtaan inta geliyo dhigtaan ma ka bixinayay gabadhana 5 caruur soo dhashay 5 iska dhaafay 8 soo dhashay marka ma rabo in arrin kale iyo aan galo just waxaan ugu talagalay muuqaalkan in aan saaxiibkay kamaal cabdul marna ah nin walaalkay oo Soomaaliyeed in maxaan ku yiraahdaa aan dhaho aad iyo aad u mahadsan tahay maadaama arrintan social media qastay gilgishay aad soo afjartay xaqiiqadana aad ka soo hadashay kulli qofkii dhaartaada ku qanci waayo oo laga bilaabo maxaan ku yiraahdaa cawada toosh kaasi daba qaato oo ku sii daba taagan qofkaas waxa dhihi karaa waa qof dan gooni ka leh anagoo dhan u istaagayno in maxaan ku yiraahdaa aan hal meel ugu soo wada jeedsano si hal meel ugu soo wada jeedsano marka xaqiiqda ka soo hadashay waad ku mahadsan tahay maraba muuqaalka inuu dheeraado just waxa ugu talagalay in maxaan ku yiraahdaa aan ku dhaho waa mahadsan tahay maadaama xaqiiqda ka soo hadashay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay saaxiibkay aad iyo aad aa mahadsan tahay waa soo afjarta arrintii xaqiiqda jirtana waa soo sheegtay runtii aad iyo aad aa mahadsan tahay arrinta kale ah in hani oo xiriirkiina sii socdo aad sii qabtid taas waa adiga iyo wax kuu yaala micna waa arrin idinka barafid iniya maraba inaan galo maraba maxaan ku leeyahay inaan ka hadlo dadka marka commentiga xalay igu soo caayay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sababtoo ah maadaama ay soo cayseen micnaheedu ma aha dad xun inaad tihiin anigana inaa qof xun ahay micnaheedu ma aha qofka hadduu fikir qaldan kaa arko haddaa isoo ammaan lahaydeen waa ku farxi lahaa soo ma haddaa isoo ammaan lahaydeen dabcan waa ku farxi lahaa marka adiga maadaama social media ku jirto waxaa arki doontaa negative comment iyo positive comment marka labadaba inaad maxaan ku yiraahdaa ku farxdo labadaba qaadato sababtoo qofkan negative-ka ku soo gelin lahay qofkan negative comment-ka ka soo bixinaya xitaa waqti ayuu ku geliyay soo ma wuu ku daawaday waqti ayuu ku geliyay marka wuu mahadsan yahay aad iyo aad maxaan ku yiraahdaa u mahadsantihiin dhammaantiin midda kale waxaa idinkala dardaarmaya muuqaal bilowga horo ama thumbnailka horo markaad aragto hore go-aan ha ka qaadan horey go-aan ha ka qaadan waayo waxaa laga yaabaa muuqaalka gudaha ama adigoo u gelin ama qaybta nuxurka muuqaalka uu leeyahay adigoo arkin inaad commenti iska soo bixiso marka commentigaadii iyo muuqaalkii isma laha micna marka muuqaal haddaa aragto dhammayso markaad dhammaysato kadib hadda aniga xalay muuqaalkii uu soo geliyey saxaaf janalkiisa uu soo geliyey waxaan daawaday 2 jeeraan daawaday 9 daqiiqo soconayay 2 jeeraan daawaday micnaha waa dhammaystay waan ku soo ceshtay waa dhammaystay micnaha
hal marna iskama aanu ma gudbin commentigii oo lahaa ayaana ka bixiyey commentigii uu lahaa ayaana ka bixiyey okay muuqaalka marba inoo dheeraado runtii saaxiibkay Kamaal mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay aad iyo aad maxaan ku leedahay u mahadsan tahay runtii waxa waaye arrintii waa adiga xalliyaan dhihi karaa macnaa arrintii adiga xalliyey oo halkii u keenay marka intaan kadibna qofkii noqoto inuu wax kaa soo sheego waa qof si gooni kuu raadsanaya macnaa ama waxyaabo kale jiray macnaa waxyaabo kale kaa damacsan mar labaad mar saddexaad aad iyo aad u mahadsan tahay fadlan haddii ay tahay booqashada kugu horeysa inaad kasoo booqato waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa subscribe like share comment intaba inaad dhararac ku siiso haddii aad hore nool joogtana aad iyo aad maxaan ku ihahdaa u mahadsan aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiin guys muuqaalka hala shargareeyo hala la gareeyo waxaan rabaa in maxaan ku ihahdaa uu Kamaal Cabdulle u gaaro aad iyo aadana mar labaad iyo mar saddexaad u mahadsantihiin muuqaalka xigeen inta dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa salaam alaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu peace and love